ayadoo maalnimadii shalay ahayd deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa saaka waxa la soo warinayaa in xaaladda deegaanka Raaskambooni ay tahay mid degan isla markaana ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada maamulka Jubbaland dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Raaskambooni ayaa dhaliyay khasaare xooggan oo labada dhinac ah waxaana isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo la geeyay dhaawacyo fara badan oo ah ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland kale maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen taliyihii hogaaminaya ciidamada gorgor ee la geeyay deegaanka Raaskambooni balse gaashaanla dhexe Xasan Ciraaqi oo la sheegay inuu galay gacanta maamulka Jubbaland oo hadle ayaa bixiyay faahfaahin dheeri ah marka ugu horeysa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waa salaamaya salaan kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu nabad qaba asmaa habka beeleed u abaabulan ee Jubbaland sheeganaya ay barabayandeeda ay sheegayaan waxba kama jiro runtii waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed oo Soomaaliya leedahay inay magaraysa isku dhintaan oo wiilal Soomaaliyeed ay isku dhintaan inta kaliya aan waxay irinay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu nabad qaba aniguna waxa weeyaan ciidankayga ku dhex jira meelaan muxuu hadii ay yiraahdo muxuu ciidankayga uga dhex baxayaan ma jiro nimanka habka qabiil u abaabulan ee Jubbaland sheeganayana runtii waxa weeyaan waxyaamaha ay barabayandeeda ay sheegayaan waxba kama jiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa wanaagsan yahay ciidankii deegaanka ee sharafta badnaa ee runtii waxa weeyaan geesiyaasha ahaa ee Axmed Madoobe iyo nimanka maxaa habka qabiileed u abaabulan ay maxaa wadeen ee diidayna ayuuna si fiican bay xoogga dalka Soomaaliyeed ula hawl galeen iyaguna xoogga dalka Soomaaliyeed bay maxaa saacadan ka mid yihiin runtii waxa weey ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed way nabad qabaan waxa weeyaan qofku maxaa beenaalaha ee magaraysa hadii ay yiraahdo aan waxba hubsanaynin ama aan wax ogeyn wax wuxuu doono uu qori karayaa waxa weeyaan muxuu ahaa maaragtay ciidanka waxa weey xoogga dalka Soomaaliyeed baa la joogaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaraysa arrintan u ilaalinaya qarannimada Soomaaliya iyo inay wiilal muxuu Soomaaliyeed isku dhintaan marka waxba kama jiraan weey anigu ciidankayga dhex joogaa ciidankaygu waa nabad ciidanka deegaanka diiday muxuu ahaa habka qabiileed ee uu waxa uu abaabulaya Axmed Madoobe ee geesiyaashaana way nala joogaan ayagoo ku beeray muxuu xoogga dalka Soomaaliyeed waana nabad qabaan guud ahaan ciidamadu way nabad qabaan runtii waxa weey ciidanka qaranka Soomaaliyeed meeshaas waxa uu uga baxay waxa weey in dhiig muxuu ummad Soomaaliyeed ay isku daalato Soomaaliyeed ay islayso asagoo taa muxuu ilaalinayo ciidanku waxa weeyaan wax kale oo meesha uga baxay ma jiro